kulan wacana wanaagsan akhyaarta wada nagala xirtay halkan waa barta youtube-ka iyo facebook-ga aan ku lehno maalin walba nagala socotaan waxaan ka codsanaynaa youtube-keena iyo facebook-geena iyo intaba aad mar walba followga iyo shareta iyo subscribe-tana la wadaagtaan waxaan kusoo qaadan doonaa sida caadada ahayd arrintii SSC xaaladdu meesha ay marayso taangiye aad u fara badan ee Soomaaliland soo daabushay iyo waxaa kale la sheegayaa in shirki uu weli socdo in qodobada qaarna la isku mar lahayn shirka waxaa kaloo la sheegayaa in garaadku uu u jawaabay jawaab aad u kululna uu siiyey ninka la yiraahdo maxamed muuse bixi cabdi oo aad u eedeeyay maamulka SSC iyo garaadada meesha joogo waxayna sheegeen inaysan ayagu argagixis ahayn waxaa studio igula sugan saaxiibka Faragod oo alaaba ka falanqeeya arrimahaasi SSC Faragod ku soo dhawaaw barnaamijka waxaan ka codsanaynaa inaad si faahfaahsan arrimahaasi noogu taabato bismillaahir rahmaanir rahiim gooni aad iyo aad baad u mahadsan tahay adiga iyo daawadayaashuba sida aad la socoteenba in dhawaalaba waxa weeyaan waxay shaqaqadaasi siyaasadeed ee kolba si laba kacleynayso ay ka taagan tahay goboladii Sool Sanaag iyo Cayn ama deegaanadii la isku oran jiray reer Khaatumo marxaladda iyo waxa weeyaan dhibka ay soo martay wad la socotaa shirka haatan loo balansan yahay aan idhaahda shirka haatan socda la doonayo maalinta bariya in la soo gabagabeeyo iyo qodobada ka soo bixi doona saxaafadda la wadaagi doono intaba wad la socotaan maamulka Soomaaliland oo hogaaminayo madaxweyne Muuse Biixi iyo mowqifka ay ka taagan yihiin shirka go'aamada ka soo bixi doona ee ah maamul u sameynta reer Khaatumo ayadana wad ogtiin madaxweyne Muuse Biixi oo ah madaxweynaha maamulka Soomaaliland sida la socotaba wuxuu aad iyo aad uga hadlay xaaladda goboladaasi wuu kala qaaday markii si loo dhow u kala qaaday isoo dadka kala shaxaadaha iyo reer Khaatumo kala shaxaadaha wuxuu sheegay in garaadada iyo dadka magaranaysa cuqaasha mar walba ay ka dambeeyaan dadkaasina ay yihiin dad dhaqanka iyo magaranaysa arrimaha dhaqanka lagu og yahay oo arrimahaasi saaxiib u ah laakiin arrimaha siyaasadda dad ku matalo oo siyaasadda deegaan walba inay leeyihiin wuxuu kaloo sheegay deegaanada Sool Sanaag iyo Cayn gaar ahaan magaalada Laascaanood dadka ku leynaya iyo dhibaatada waxa ka jira inay yihiin argagixiso arrintaasoo gooniyow inta badan la isweydiinayo oo ah in maamulka Soomaaliland muddo dheer caalamka uu ka dhaadhicinayay in Soomaaliland guud ahaanba aysan ka jirin wax la yiraahdo argagixiso oo ay ka jirto koonfurta Soomaaliya sida daradeedna aynan la tacaamul karin ama aynan la midoobi karin sidaana uga goosteen loona baahan yahay in ay magaranaysaa aqoonsi caalami ama ictiraaf caalami inay helaan arrintan oo in badan ay u saciyanayeen maamulka Soomaaliland kuna tilmaamayeen in uu argagixisadii al-shabaabku ay ka dagaalamaan koonfurta Soomaaliya ayaa xilligan waxay ku soo hagaagaysaa xilli gooniyow dhibaatada halka ka jirta loo saariyay in ay yihiin dhibaato argagixiso loona baahan yahay maamulka Soomaaliland wax ka qabtaan waa hadalada madaxweyne Muuse Biixi sidoo u dhigay marka waxa la isweydiinayaa Muuse Biixi iyo maamulkiisu in badan bay caalamka u sheegayeen inayna argagixiso ka jirin marka ma hadday argagixisadu ka bilaabatay ma hadday ku dhalatay arrintaasi waxa weeyaan su'aalaha la isweydiinayo ku gadaaman ma garanaysaa khudbadii madaxweyne Muuse Biixi dhanka kale waxaa jira in garaadka guud ee beelaha Sool Sanaag iyo Cayn ka soo jeeda garaad jaamac in uu ka jawaabay hadalkii ama khudbadii uu jeediyay ninka lagu magacaabo madaxweyne Muuse Biixi marka sida la socotaba garaadku wuxuu tilmaamay in deegaanada Sool Sanaag iyo Cayn inaysan ka jirin wax argagixisa iyo wax al-shabaab iyo wax sideedaba dadka ma garanaysa wax argagixisada hadda maanta loo yaqaano inaysan ka jirin garaadku markii khudbadiisa si loo fiiriyo uu garnaqsaday wuxuuna tilmaamay in ay maamulka Soomaaliland waliba asagoo qabiil u dhigayo oo beelaha Isaaq waa inay faraha naga qaadaan anagu maamul ahaan uma aqoonsanin maadaama maamul ahaan ayna noo aqoonsanin waxaan nahay dadka reer Khaatumo anagu maamul cusub iyo deegaan baanu leenahay dhulkanaga ha noo daayaan beelaha Isaaq sida ayuu hadalku u dhigay wuxuuna tilmaamayaa uusan marraba aqoonsanayn maamulka Soomaaliland oo iyagu isu arka dhulkii Ingiriiska gumaysan jiray inay iyagu ma garanaysaa maamulka Soomaaliland ay ka taliyaan marka arrintan ayaa waxay ka hor imanaysaa gabi ahaanba in ma garanaysaa halkaasi uu ka dhici doono iska hor imaad sida la saadaalinayo maadaama oo si aad loo kala fog yahay maamulka Soomaaliland iyo reer Khaatumo hogaaminayo garaadka guud ee beelahaasi Fargodow waa maasan tahay in Muuse Biixi Cabdi maadaama uu sheegay in argagixiso ee dhibka geysatay dadkana ay leesay ma ciidanka Soomaaliland ayaa argagixiso noqonayo waan ognahay meeshaas waxa dadka ku laayay mar walba dadka laaya waa ciidamada Soomaaliland marka haddii sirka warka loo fiiriyo Muuse Biixi Cabdi oo hadda wiilasha ugu dambeeyay qaadwalayaasha dadka laayay ciidamada Soomaaliland ay ahaayeen dadkii marka hore wax dilayna ciidamada Soomaaliland ay ahaayeen marka ninkii la dilay oo dhibka ka bilowday Cabdifatax la yiraahdo Hadraawi la dhihi jiray Allah u naxariistay dhibka uu ka bilowday
wuxuu ka tirsanaa xisbiga wadani waxaana dilay maamulka Somaliland wax qarsoon ma aha marka haddii si loo fiiriyo argagixisada uu sheegayo ma ciidanka Somaliland noqon karta ilaan qof kale meesha ma jooge su'aasha Muuse Biixi in la weydiiyo Soomaaliland horta maamulku ka warwareegaya gabi ahaanna dadkan shacabka ku dhaqan gobolada Sool Sanaag iyo Cayn guud ahaanba waa laga nacay maamulka Somaliland wax ka socda iyo wax sheeganaya xataa kuwa matalaya waxay ugu baaqeen inay ka soo baxaan oo ay yimaadaan deegaanadooda haday wasiir ama xildhibaan ay doonanayaanna in ay deegaanadooda xildhibaan iyo wasiir ay ku noqdaan waxa weeyaan canshuurtooda iyo baajeedkooda iyo wixii federaalka ka helaan inay ka lacag badan yihiin kana xoolo badan yihiin ayay tilmaamayaan marka waxaad moodaa arrintani arrin ay ka hoostay madaxweynaha Muuse Biixi dadka qaar ama siyaasiyiinta deegaanada maxaan ku dhahay nimanka mucaaradka asxaabta mucaaradka waxay inta badan soo jeedinayeen in maadaama hawsha waxa ku jira deegaanada Sool Sanaag iyo Cayn waxa ku jira ay yihiin dadka odayaasha iyo cuqaashi maadaama yihiin in loo diro garaadadii iyo cuqaashii iyo dadkii waxgaradka ee ka soo jeeday Somaliland arrintan aan lagu xalin arrin military marka sidaad la socotayna saaka ilaa xalay waxaa jiray in lagu soo dadgureynayo duleedka magaalada Laascaanood in lagu soo dadgureynayo ciidamo aad u fara badan iyagoo ciidamo aad u fara badan markii horeba ay ka joogeen deegaanadaasi oo ay dul fadhiyeen haddana lagu soo biiriyay kaarayaal iyo ma garanaysaa waxyaabaha culculus ma garanaysaa kuwa xambaara in lagu soo biiriyay taasoo u muuqato in ma garanaysaa laba gooraba uu dagaal meesha ka dhici karo fargad waa mahadsan tahay waxaa la leeyahay Mahad Cabaashe oo ah ninka SSC ku matala Somaliland awoodiisa ciidan waa la soo koobay waxaana lagu soo koobay in ciidamada SSC ka soo jeeda ee ciidanka Somaliland ku jiro bis oo maamulo shaqada guud oo Somaliland u hayana waa laga hakiyay oo shaqadiisa waa la qaboojiyay nin kale oo asagana Reboroma ah oo asagana ciidamada ku jiray maadaama shaki laga qabo Reboroma naftikooda asagana awoodiisa waa la xadiday ciidamada guud oo asagana ka shaqeyn jiray ama guutadii oo madaxda ka ah waa laga joojiyay oo shaqo gaaban ayaa loo dhiibay marka fargodow shaki soo ma keeni karto maadaama Mahad Cabaashe oo ah nin SSC ku matalo ciidanka Somaliland qayb weyn ka ahaa hogaaminta ciidamada in awoodiisa la dhimo shaki laga qabo inay tahay ama inay Muuse Biixi Cabdi ciidamadan faraha badan oo meesha ku soo daabulay uu rabo inuu ku weeraro SSC maadaama shirka markuu ka soo baxo waxa shirka laga soo saari doono wax dan aan u ahayn Somaliland inay yihiin uu og yahay taas maxaa la dhihi karaa in la soo koobo awoodii Mahad Cabaashe asaguna maalmo ka hor ama isbuucyo ka hor sheegay in SSC iyo meel walba Somaliland ay ka taliso idaacadda uu la taagnaa fargodow aad iyo aad baad u mahadsan tahay gooniyo waad la socotaa Mahad Cabaashe waxa uu in dhawaalaba uu muddo dheer ka tirsanaan idhaahdee maamulka Somaliland isagoo ciidamada uu haysta ay yihiin ciidamo gaar ahaan ka soo jeeda reer Khaatumo haba u badnaadeen magaalada Laascaanood oo beesha Jaamac Siyaad la yiraahdo ay inta badan degaan oo deegaanadaasi ay ciidanka u fara badan yihiin ayaga ay yihiin haddana markii sidaa la yiraahdo Mahad Cabaashe xilkii waa laga qaaday waxaana loo dhiibay wiil ka soo jeeda gobolka Togdheer ayaa loo dhiibay oo dhalinyaro iyo nin kale ayaa labada wiil baa loo kala dhiibay oo la isaga hoosisiiyay Mahad Cabaashe iyo ninka kale ee ka soo jeeday deegaanada kalena waa laga qaaday oo meelo kale ayaa la geeyay arrintaasoo dadka ma garanaysaa siyaasadda falanqeeya iyo dhanka milatarigaba ay ku tilmaamayaan gooniyow in labadan wiil ee dhalinyarada ah oo markii ay ka soo ambabaxayeen magaalada Hargeysa lagula soo ballamay in ay ma garanaysaa ammaanka ay sugaan arrintaasoo loo fasirinayay in ay magaalada Laascaanood uu ka dhici doono iyo duleedkeedaba dagaal xoogan oo isga hor iman doonaan xoogaga reer Khaatumo ee deegaanadaasi ku sugan iyadoo la saadaalinayo ambaba la sugayo shirka haatan loo fadhiyo magaalada Laascaanood waxaana la rajaynayaa haddii uusan madaxweyne Muuse Biixi uusan ka tanaasulin mowqifka inuu xal military inuu wax ku raadiyo in ma garanaysaa halkaas uu dagaal ka dhici doono waxaana la saadaalinayaa dadkani inay jabhadeyn doonaan oo nina dhulkiisa loogama xoog badna hadiiba mar reer Khaatumo israacsan yihiinna waxaad moodaa inaan lagaga tagroonayn dagaalka fargodow haddii si loo fiiriyo ciidamada ay haysato SSC qayb ka mid waxay ka mid yihiin Puntland oo ciidamo tababaran waaye waxaa kaloo jiro ciidamo buuho la kimiday oo qaab beeleed ama Khaatumo dadka la dhihi jiray gooni u ahaa oo jabhad camal u abaabulan waxaa kaloo jiro ciidamo kale oo jabhado ah oo ayagana SSC ka soo jeedo waxaa jiro ciidamo Somaliland ka soo goostay wixii oo dhan waxaa la isugu keenay magaalada Laascaanood hoggaan midaysan ama taliye ciidan oo hogaamiyo ama nin ay ka amar qaataan ma laha waa dad ciidamo qaab beeleed la isugu keenay kuwa tababaran iyo kuwan tababarnayn way isugu jiraan soo ma wanaagsaneen in taliye hal mar loo magacaabo ciidamadana wada hogaamiyo
khibrad dheeraadan ay u baahan yihiin ciidamada SC meesha lasugu keenay haddii si loo fiiriyo. midda kale haddii maamul lagu dhawaaqayo ninka la yidhaahdo garaad jaamac oo kale maalmihii hore wuxuu dhahay ilaaba inaan maamul ku dhawaaqnaa. arrintaasoo odayaashu qaarkood ay ka biyo diideen eena sheegeen maamul ku dhawaaqida aan dib u dhigano laakiin qodobo aan soo saarno oo marka hore aan qodobo oo micnaha danta u ah ama aayaha SC aan marka hore soo saarno markaan qodobada ku dhawaaqno kadibna maamul samaynta aan dib micnaha aan ka dhigano. marka hore garaad jaamac arrintaas wuu diiday, wuu is adkeeyey, wuxuuna rabay in mar walba lagu dhawaaqo maamul madax banaan. laakiin waxaa ka horeeya dheheen garaadada kale ee meesha ku sugan iyo duqeytida waxay dheheen waa inaan marka hore anagu wax midaysan aan meesha la tagnaa, iyadoo wax laga filan karo SC inay ka filanayso in Somaliland ay culays keeni doonto ama dagaal ay kusoo qaadi doonto, laakiin qodobada marka hore in lasoo saaro go-aan midaysan laga qaato. marka fargood maxaa soo bixi karo berri waxaa leeyahay shirka in lasoo gabagabeeya dhici karto, inuu maalin kaloo dheeraad qaatana waa dhici kartaa. marka xaggaas ciidamada soo uma baahna fikir wanaagsan iyo taliyo ciidan oo hogaamiye. xagga maamul sameyntana in dib loo dhigaa mase waa in hadda lagu dhawaaqa. labadaas arrin ayaan rabaa inaan ka jawaabto. haddii aan ku kala horeeyo dhanka ciidamada iyo inaysan lahayn maxaan ku dhahaye taliye iyo ciidan midaysaneyn ayna ahayn, arrintaasi waa run, laakiin muhiimadda waxa weeyaan fikirka ay xambaarsan yihiin baa ka turjumaya xaaladda iyo dagaalka kolka markaa lagu guda jiro. waad la socotaa ciidamada Ethiopia markii ay galeen magaalada Muqdisho waxaa iska jiray dad shacab oo muqaawamo la baxay, yacni difaac qaran. waxa weeyaan 4 nin oo maanta ganacsanaya suuqa bagaar ka ganacsanaya ayaa caawa qoryahooda qaadanaya, way israacayaan. Ethiopiaankiiba caawa weerar qac lagu siinaya, dhalinyaradii baa loo yeedhaya qoriga sidii loo ridaa la baraya, kadibna dagaal baa sidaa lagu gelaya habeen kasta iyo subax kasta iyo meel kasta ay marayaan. yacni dadka jaantay rogan ah ayaa waxa weeyaan dagaalka kula jira ciidamada Ethiopiaanka. aakhirkiina ciidamada Ethiopiaanka oo kumanaan ah oo ka dabaabad badnaa oo ka buuxi badnaa oo ka saanad badnaa oo ka sirdoon badnaa waxaa lagu jabiyey magaalada Muqdisho. marka waxa weeyaan dadku waxaa muhiim ah inay dareemayaan in dhulkoodii la qabsaday oo deegaanadoodii dad kale ay ku nool yihiin, ay doonayaan inay iska difaacaan. ayadaa waxay marka dambe waxay iska dhex samayn doonaan waxa la yidhaahdo hoggaan ma garanaysaa adag oo ma garanaysaa u hoggaansama sidii ma garanaysaa arrimaha danta u reer Khaatumo iyo difaaca deegaanadaasi ayaga marka dambe iska samayn doona. laakiin muhiimaddu waxa weeyaan dadka horta deegaanka ma ka midaysan yihiin inay iska dulqaadaan maamulka Soomaaliland. haddii arrintaasi ka midaysan yihiin qofka hogaaminaya ciidan ahaan ku hogaaminaya marka dambe asaga iman doona wax la waayahayana maaha. arrinta kale waxa weeyaan odayaashu la sheegayay haddiiba jirtaba aan ma filayo inay jirto qaar ay leeyihiin maamul baan dib u dhigaynaa. haddii maamulka sideedaba la yidhaahdo maamul baan dib u dhigaynaa oo hadda qodobo go-aanaan soo saarayna intaa keliya haddii lagu daysto reer Khaatumo way fashilan yihiin. ma garatay? haddii qodobo bas la soo saaro oo la yidhaahdo Somaliland ha naga baxdo awal horeba dib dhagtaa loogu sheegayo warbaahinta loo marinayay. haddii reer Khaatumo keliya shirkooda intaasoo beri socday ay ku soo koobaan qodobo ay ka mid yihiin inayna maamul ayna ku dhawaaqin gooni isu taag iyaga gaarkooda oo maxaan ku dhahay maamul state iyagu leeyihiin haddayna ku dhawaaqin oo waliba dadkii hogaamin lahaa iyo guddigii iyo sidii wax loo dooran lahaa guddigii ayna samaynin oo hawsha ayna ku samaynin, sideedaba shirka iyo reer Khaatumo way fashilan yihiin. mar labaad bayna waxay hoos joogi doonaan maamulka Somaliland. laakiin siduu garaad jaamac uu doonayo in meesha maamul lagu sameeyo oo maamulkaasi uma jeedo maamulkii hogaamin lahaa, maamul yacnihii shirkan iyo xaaladahan ku meel gaar ah xaaladan hogaamiye haddayna iska qabanin oo aynan ma garanaysaa hawshaasi u qumin waxa weeyaan shirkoodii iyo arrintii ay dadka ma garanaysaa ay muddada ay ku xoojinayeen waa fashil. marka anigu waxaan ugu baaqayaa inay maamul ku meel gaar oo guddi doorashada qabto oo beelaha isugu keeno oo shirweyne dambe la isugu yimaado oo maamul ku meel gaar oo reer Khaatumo la yiraahdo lagu sameeyo oo maxaan ku dhahay warsangari iyo beelaha kale ka maqan la isugu yeero. sidaasaa la doonayo dhaqaalihiina meesha lagu ururiyo, nidaamkii iyo habkii dowladnimada maamul goboleedkiina loo sameeyo, constitutionkii iyo tallaabooyinka ugu horreeyana ay qaadaan. laakiin hadday noqoto shimbiriya heesa oo Somaliland oo naga baxa, Somaliland ma baxayso gudaheena soo gal waana la kala furfuri, shir dambana isugu maahin oday walba iyo oday dhaqameed walbana deegaanadiisii meeshuu ka yimid buu ku noqon. sidaasayna ku fashilan yihiin. waa haddii hadalkaa ay run noqdo. haddii kaloo maamul iyo nidaam ay ku dhawaaqaan falilah alxamdu waa la soo dhaweynaya. farogod aad iyo aad aa umahadsan tahay. garaad jaamac maanta wuxuu sheegay in isaaq ay ka baxaan dhulka
maxaa la yidhaha dhul bahante haddii aysan ka bixinna dhibaato ay dhici doonto arrintaasoo kale culeys ayay keeni doontaa meeshanna waxaa leeyahay dagaal ayay foolanaysaa ummadda soomaaliyeed ilaahay ha kala qabto boggoodana burcad ilaahay ha isku mariyo wax wanaagsanna inay shirkaas kasoo baxaan ayaan rajeynaynaa somalilandna inaysan dadka aysan weerino dadka ay xoog ku muqunin ayaan rajeynaynaa reer s c hadday tashtaanna go-aankooda iyo ayahooda ayagaa iskale akhyaari waa ku mahadsantihiin la socodkiina barnaamijkeenan waxaan ka codsanaynaa mar labaad iyo mar saddexaad inaad nala socotaan waxaana isha kusoo gabagabaynaynaa wararkeeni tan iyo kulantadan dambe xiisale waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo